habeen wanaagsan dhammaantiin aqyaarta qiimiga iyo qadarinta mudan marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh caawa halkan isugu yimid dhammaantiin waxaan idin leenahay habeen wanaagsan waxaan si sharaf iyo qiimo badan idinkaga mahadnaqaynaa waqtigiina qaaliga ah xilligan qabowga daran uu jiro inaad u soo horteen caawa inaad ka soo qayb gashaan barnaamijkan aan ku daahfurayno qaybta qurba joogta Soomaaliyeed ee caalamka ku nool ee gobolka Mareykanka ee magaca loo bixiyay uu yahay Global Somali Diaspora dabcan magacaasi oo Soomaaliyeedna iyaga ayaan ka rajaynaynaa inay keenaan maadaama qodobadooda markaan arkay ay ku qornayd afka dhaqanka iyo hidaha iyo luqadda Soomaaliyeed ayaan wax ka qabanaynaa waa tahay barnaamijkeenu caaw wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo kala gedisan dabcan waxaan filayaa ta ugu muhiimsan oo dhammaantiin isha ku haysaan inay tahay Axmed Naaji Sacad oo nala jooga oo uga yimid ilaa iyo Afrika inuu barnaamijkan daahfurka ah qurba joogta qaybta gobolka Minnesota uu ka mid noqdo oo isla markaasina barnaamijkan magaca loo bixiyay uu yahay higsiga Israaca oo macnaheedu tahay inuu ka shaqeeyo Soomaaliya ay israacado isla markaasina qurba joogtu ay door ku yeeshaan midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay riyadaasi dhamaanteen oo dhabowdo sidoo kale daafurka dabcan waan ka waramay waxa kale xusid mudan oo aan jeclahay inaan xuso waxaad ka warhaysaan 2 maalin ka hor wixii ka dhacay wadanka Soomaaliya oo qaraxii aadka u xanuunka badnaa dadka faraha badan ee waxgalka ee Soomaaliyeed ay ku baabeen arintaasna waxaan rabnaa sidoo kale inaanu xusno ka tacsiino isla markaasina kuwii dhibaatada geystay aanu cambaareyno isla markaasina aynu tilmaano sidii ugu muhiimsan arrimaha wax looga qaban lahaa dabcan qayb ka mid ah khudbadaha arintaasi looga hadli doono waxba yaan hadalku ila tagin ugu horeyn waxaan jeclahay ayadaha quraanka kariimka inaan barnaamijka ku furano waxaan u yeerayaa oo ayadaha quraanka inoo akhrinaya Cabdikariin Cabdillaahi Muuse oo ah qaari quraanka si wanaagsan u yaqaan isla markaasina kamida jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaybtooda Jaska oo dabcan ururkooda sinoo madax u yahay ila soo dhaweeya Cabdixakiim Cabdikariin Cabdillaahi Muuse a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون waxaan sugnaaba intaanan khudbadaha kala gelin heesta calanka soo sidaa ma khudbadan bilaaba Soomaaliyey toosoo isku tiirsada hadba kiina taagdarane taageera weligiine qalqalyo waxaan nahay qoys qaybna loo qaybsho qayrkoodna laga reebo qaawano dariiq la dhige Soomaaliyey toosoo isku tiirsada hadba kiina taagdarane taageera weligiine waxa aan la ooyayo ilmadu iga qubanaysa
ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadanahaye soomaaliyey toosoo isku tiirsada hadbakiina taagdarane taageera weligiine taageera weligii Somalia. All right. waa tahay afkaaga aan lagu qabay dalmar aad baad ugu mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad heesta u qaaday inkastoo aan anigu shakhsiyan fanaaniinta Soomaaliyeed ka codsan lahaa mustaqbalka dambe in heesta astaanta caalanka ee Soomaaliyeed ay sideeda noo ahaato oo aan ama la bedelin ama wax lagu darin oo waan ogahay abwaanin fara badan baa waxaad moodaa inay dib ka gocdeen oo jeclaysteen inay wax ka badbedelaan marka hadalkaas abwaanintu ku jeeda heesaha badbedela marka waxaan leeyahay heesta caalanka sideeda hanoo lagu daayo waa tahay aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclahay haatan inaan microphone-ka ku soo dhaweeyo engineer Jibril Afyare oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladan quruxda badan ee caawa halkan aynu ku soo bandhigayno waxaad ila soo dhaweysaan Jibril Afyare Jibril soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولاليال مدنيال ladies and gentlemen for those that do not speak Somali I might say a couple of English here and there this is a great event caawa waxaan isugu nimi habeen taariikheed waxaan filayaa howlkan in la soo buuxin doono hadduu ilaahay yiraahdo waxa mahad weyn leh ilaahay baa mahad weyn leh marka hore marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii isugu jirtay gabdhaha iyo wiilasha ee barnaamijkan quruxda badan ee caawa aanu idiin soo diyaarinay hadduu ilaahay yiraahdo aad runtii ka dareemi doontaan Soomaalinimo islaamnimo wadaninimo isjacayl dadnimo iyo annagoo hiigsanayna barnaamijka aanu ugu magac darnay hiigsiga israaca qurba joogta Soomaaliyeed hiigsiga israaca qurba joogta Soomaaliyeed oo anu bias ah ama anu eexanayo reer Minnesota aan leeyahay reer Minnesota ayaa hiigsiga israaca qurba joogta Soomaaliyeed mar walba hoggaan ku haya maxaanu hiigsanaynaa maxaanu isku raacnay saan haday u sheegay waxaanu isku raacaynaa ugu horeyn muslimnimo Soomaalinimo wadaninimo waa la yiraahaa laakiin hadaan runta isu sheegno maadaama dalkeenu ay dhibaato ka jirto dhibka mar walba naga soo horeeya dadkeena meelaha ka cararara ee volunteerka ku shaqeeya fi sabilillah Soomaalinimo ay wado wax walba oo aan qabano oo aan ogahay anu gabadha hoggaanka noo haysta ee global Somali diaspora oo gabar ah Fartuun Cabdulle la yiraahdo in ay hiigsigaas qayb weyn ka leedahay sababahaas ayaanu Minnesota kaga duwanahay qurba joogta kale waxaan tagnay Turkiga last year ilaahay baan ku dhaartay kulay gudoomiye ku-xigeenka waa joogan mar walba meel walba aan tagno reer Minnesota la leeyahay waan la riixaya laakiin riixdintaas waxay keentay in muxuu ahaa ay nasiib gelisay hididiilo kale in reer Minnesota nalaga fadhiyo Soomaali weyn hadaan nahay hiigsigan iyo israacan aanu caawa meesha u fadhino inaan riixno inaanu barnaamijyo dadka anfac iyo wanaag iyo israac leh aan dadka Soomaaliyeed u muxuu ahaa tilmaamno waxaan runtii aan raacaya walaalkay Mascade anoo tacsi weyn u diraayo dadkii muslimiinta ah Soomaaliyeed gacantaas xaq daran ay dishay taas runtii waxay nagu sii dhalinaysaa in barnaamijyada noocyadan oo kala ah aan sii wadno si cadowgaas dalkeena Soomaaliyeed muxuu ahaa isla dib u dhiga aysan naga guuleysanin waxaanu ballan ku qaadnay in barnaamijyada wacyigelinta ah aanu sii wadno hadduu ilaahay yiraahdo waa tahay aad baad u mahadsantahay Jibril Jibril waxa uu ka dhawaajiyay in qurba joogta
ururkan Global Somali Diaspora markii la sameynayay ay Minnesota kaga duwan tahay meelaha kale inay xilka u dhiibteen gabar dabcan waxaad ogtihiin hablaha Soomaaliyeed inay yihiin laf dhabarka qoyska Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedba xorriyadii iyo halgankiina dabcan iyaga ummadda meeshan soo gaarsiiyay dagaaladii markii dhacayna kama sheekeynayo waad ogtihiin anugu hooyo koristaan kamid ah waana ku faanaa mar walba inay hooyaday soo korisay marka waxaan jeclahay in aad soo dhaweysaan gudoomiyaha qaybta Global Somali Diaspora ee gobolka Minnesota Fortune Abdulle Maxamed alxamdulilah rabbil caalamiin bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan horta waa u mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay shirkan caawa halkan aan isugu nimaanay dhammaantiin marka labaad waxaan u hambalyeeynaya fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed oo ayakana heegan u ah mar walba inay dhiirigeliyaan dadkeena meesha iskugu imaaday ma ilaawayo meediyaha oo mar walba ka qayb qaadata ayadana wixii ay ummadda Soomaaliyeed qabaan haddii aan u soo laabto fanaaniinta Axmed Naaji Sacad waa nin fanaana oo weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeedna mar walba ay hiigsadaan kulli fanaaniinteena cusubna waxa u maleynayaa inay ka qabsan doonaan ama se ay ka raaci doonaan waxyaalaha oo muhiimka asagu uu caawino horumarin doono waa mar labaad waa maasantiin waxaan rabaa inaan hiigsiga iyo israaca shirkan aan ugu magac darnay wax yar idinkaga taataabto hiigsiga iyo israaca kulli Axmed Naaji asaguna hees buu nooga sameeyay oo isleeyahay waa dadkay taabanaysa marka heestaasna markii hadhow la idin daaro waxaan maleynayaa dad badan inay dhiirigelin doonto oo ayna noqon doonto mid idin raacda oo guriyihiina markaad tagtaan dib uga fakartaan waxa micnaheedu ka taagan yahay oo Global Somali Diaspora hiigsigiisu iyo israaciisu waa 4 qodob oo muhiim ah 4taas qodobna waxa kamid ah isku xirka iyo mideynta qurba joogta Soomaaliyeed markaan leenahay isku xirka iyo mideynta qurba joogta Soomaaliyeed ma aha shakhsi gaar ah waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddaanan israacsaneyn ama aan isku xirnayn waxba ma qabsan karno sidaas darteed waxay tahay qodobkeena koowaad inuu noqdo sideema Soomaaliya ku horumarinaa ama isku raacnaa annagoo mid ah number 1 wadankan aan joogno waxa waaye in hal cod aan yeelano halkaas cod ayaanu ku matali karnaa laakiin haddii noqoto in reer qabiil hebel waxbane ma kabsan karno waa wadankeena waa baabay waa la socotiin waxa ka jira maanta midda kaliya oo noqon karta inaan midoono waa midda kaliya israaciyo hiigsiga oo nogeyn karo midda labaad waa ilaalinta luqadeena af Soomaaliga wata hadda ka hadlayay qof baa wuxuu yiri halaga qoro hees calan aan anagu lahayn inkastoo hoos joogno calankeenu yahay haddana qof walba waxay ka turjumaysaa luqadiisu hidiis iyo dhaqankiisa hooyo haddaad hidiyo dhaqan lahayn meelna ma gaarays ma fahanteen marka waxaan leeyahay Soomaaliye aan toosino afkeena hooyo luqadeena hooyo dhaqankeena hooyo taas aan ku barbaarin karnaa ubadka anagu aan leenahay halkan joogo midda saddexaad oo annaka aan hiigsanayno waxay tahay israaca qurba joogta Soomaaliyeed sidee bay u noqon kartaa inaanu israacno oo dalkeena hooyana wax ugu qaban karnaa waa inaanu shirarka badinaa waa inaynu anagu tashanaa waa inaynu wada heshiisiin Soomaalinimo oo naga daacada aan isku la nimaanaa haddii kale to marnaba horumar ma gaari karno difaaca xuquuqda Soomaalida qurba joogta waa qodobka afraad aan hiigsanayno haddaan nahay Global Somali Diaspora taasna waxay tahay kullee waa dadkeena Minnesota joogo oo aniga aan Minnesota ka ahay jabtarka halkan qofka liid gareeyo midda kaliya aan isleeyahay taas waa lagu gaari karaa waa ogtihiin dhibaato badan baa naga jirta haddaan Soomaali nahay ilmaheeni wadankan waa ku dhibaataysan yihiin waayeelkeeni waa ku dhibaataysan yihiin dumarkeena waa ku dhibaataysan yihiin familiyadeena qoysaskeena burbur badan baa ka jira marka sidee baanu haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed isku keeni karnaa si ay u noqoto mid aan go'aan weyn kaga qaadan karno hidihii iyo horumarkii iyo isku xirkii wadankeena sidaas darteed khudbadeeda anaa soo gaabinaya waxaan leeyahay
ogaada haddayna qoysaska toosinin ama qoysaskeenu aysan horumar gaarinin ama ubadkeena aanu ku barbaarinin afkeena hooyo luqadeena hooyo dhaqankeena meel lama gaari doono wadankeena waxba uma qaban doonto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fartuun aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa qodobada aad tilmaantay inaad sidaad noogu sheegteen aad ugu dhaqantaan oo aad ka dhabaysaan isla markaasina inaguna aan noqono dadkii Soomaaliyeed ee barnaamijkaasi idin la wadi lahaa isla markaasina ka shaqeyn lahaa ugu dambeynta in la helo midnimo Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed oo dhameystiran qof kasta oo Soomaaliyana uu u arko inuu qayb ka yahay isagoo faraxsan waxaad ila soo dhaweysaan haatan ciise geydhe oo kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota isla markaana aan jeclahay inaan haatan microphone ku yeero Cabdiwali soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacdah waxaan u maleynayaa afeefta anigu igu bilaabay marka hadal badni buu igu ogaa baan u maleynayaa inaan uusan microphone ku ila tagin marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka bulshada Soomaaliyeed ee xafladan ka soo qayb gashay qabanqaabiyaasha miidiyaha fanaaniinta dadkan xafladan quruxda badan soo diyaariyay waan hubaa habeen iyo maalin badan inay danahoodii gaarka ka soo tageen oo ay inoo diyaariyaan meeshan quruxda badan in ay isugu nimaadno waxaan rabaa hadalkayga inaan soo koobo waxaa la yidhi GSD ama qurbato joogtu waxay u taagan tahay inay midayso aragtida isuna soo dhaweyso qurba joogta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rabaa wax yar inaan uu ka hadlo muhiimadda ay leedahay in ummaddu mar walba xagga aqliga iyo maskaxda ay isaga dhowdahay danahooda iyo aayahoodana ay ka tashan karaan run ahaantii dhammaanteen waxaynu wada ognahay dhibaatada iyo musiibada ummaddeena Soomaaliyeed haysata sababta keentay inay kala qaabsanaan qabyaalad iyo inagoon aan isogolayn inay tahay maadaama 24 sano ka hor aynu ogeyn inay dhibka ay lahayd dawladihii hore kacaanka aynu lahayn ay qabyaalada aaseenba mararka kamida waxa isweydiinta le maxaynu haddana wali isu ogolaan laana inagoo waliba joogna wadamo hormaray oo dad kala diime ah kala dhaqan ah kala aqoon ah kala culture ah ay meel ku wada nool yihiin waa inaynu wax yar ka fikiraa quruxdan idinka muuqatay ee shacnigan waan hubaa in badan oo idinka mid ah gaari iyagu ay leeyihiin oo u gaara inay wateen waan hubaa dad badan oo idinka mid ah inay isku filan yihiin dhaqaale ahaan aqoonna meel wacan ay ka gaadheen waxaa isweydiin la marka maxaa suuro geliyay nolosha macaan inaanu halkan ku haysano wadankii inagu aynu lahayna nolosha aynu ku haysan weyno waa su'aal qof kasta oo marka uu isweydiiyo uusan jawaab u heli karin kala qaybsanaanta inagu aan kala qaybsanahay waxay keentay in fanaankeenii uusan qiimo lahayn sheekhiinii uusan qiimo lahayn ninka PhD noo qaata ama dhakhtar noo noqdo ama lawyer noo noqdo aan adduunka laga ixtiraamin waayo wuxuusan ka jawaabi karin maxay dadkaagu isu raaci waayeen waa wax qofka aad iyo aad qalbigiisa u xanuujinaya wali damiirku uu ku jiro waxaan rabaa marka inaan anigu wax yar isku xidho fiicnida qofka iyo bulshadu inay saameyn isku leedahay haddaad adigu qof fiican tahay laakiin bulshadaada inta badan ayan kula fiicnayn wali qof fiican ma tihid dhibaatada ina haysataa wali waxa inoo haysataa malaha 80% mujtamaceena Soomaaliyeed dad fiican ma aha waayo haddii dadka fiican ay ka badnaan lahaayeen dadka wanaagsan sidan aynu ka bixi lahayn aayaheena aynu ka tashan lahayn wiil kasta oo Soomaaliya oo meel walba ku dhasha isagoo dadka kale ciyaalka kale adduunka jooga kan nasiib xun buu dhashaa waayo mujtamaca uu ka dhashay baa la hadhaya waayo waxa la og yahay meesha uu gaari karo meesha ugu sareysa inay meel xadidan tahay marka waxaan rabaa sawir yar oo qurux badan oo abwaankii weynaaye dhoodaan hadda ka hor gabay aan ka dhageystay oo likaaca la yiraahdo inaan isu qabto
oo uu leeyahay raggu laqan fariid uu noqdaa ama sawaaliide anna labada cayn miihiya laa badhaan huu yidhi qof fiican iyo qof xun maxaa u dhexeeya fariid waxba fariid kastood noqoto marka lagu yidhaahdo soomaali baa tahay waad dhiman tahay soo maa waa sawirka wuxuu bixinayaa innaga ina haysta wuxuu leeyahay nimaan lugi jabnayn baan ahay iyo xoogga lawyaduya ha yeeshee lixaad kuma socdee laangadhaan huu yidhi anoon la fii jabnayn oo lixdayda lixaad qaba baan haddana markaan soconayo dhutinayaa Hadi yo chemba, kuhamina inayo kahani
aad baad u mahadsantihiin waxaa xusid mudan maanta qaarkiin haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba inay tahay maalinta caalamiga ee afka hooyo waddan kasta oo caalamkii maanta wuxuu u dabaaldegayaa maalinta luuqaddiisa ummaddeena Soomaaliyeed sidoo kale waxaanu ka mid nahay dadkaasi luuqadooda u dabaaldegaya waxaad ogtihiin maraan fogeyn UNESCO warbixin ay soo saartay waxa la sheegay afafka laga yaabo inay tirtirmaan inuu af Soomaaligu ka mid yahay aaba kasta iyo hooyo kasta waxa la gudboon dabcan inay wiilkiisa iyo gabadhooda iyo ilmahooda ay baraan afka Soomaaliga haddaba khudbad umuurta ku saabsan oo munaasabada la xiriirta waxa halkan inoogu soo diyaariyay oo noo soo jeedinaya mid ka mid ah rugcadaagii Soomaaliyeed ee dhanka saxaafadda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Cabdulqaadir Maxamed Mursal haddii aan wax yar idinka sheego waa suxufi waana qoraa muddo dheer ka soo shaqeynay warbaahinta haatanna weli ku lug leh bare jaamacaddii Gahayr kulliyadii afafka ee Soomaaliya haatanna ah la taliye madax bannaan oo arrimaha warbaahinta Soomaaliya aan idinku dar ee Cabdulqaadir Maxamed Mursal sheekadii olol iyo hooyadii intii xasuusata waa hal abuuraheedii ila soo dhaweeya Cabdulqaadir Maxamed Mursal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مدنيال إمروين waxaa sharaf ah inaan caawa sidan oo kale uga soo qayb galo barnaamijkan qiimaha leh oo aan hubo inuu yahay barnaamij waxtar weyn u leh markii laga hadlayo qurbaha iyo markii laga hadlayo maalinta munaasabada ah ee 22ka Febraayo oo ah maalinta caalamiga ah ee hooyada hooyadu wax ka nasiib badan ma laha mar walbana waxa weeye waxa ay u taagan tahay halqabsiga bini aadamka abuuristiisa dhisidiisa ababintiisa tarbiyeentiisa waxbarashadiisa waxa soo dhan hooyadu meel kasta way nooga horeeyaan haddaad ogtiin markii laga soo bilaabo dagaaladii Soomaaliya ilaa iyo maanta waxa na hogaaminaya waa iyaga miisaal yar hadaan siiyo dhinac walba nolosha waxa naga taakuleeya waa iyaga haddaan soo qaadano qurba joog ahaan aan soo qaadano gobolka Minnesota oo aan soo qaadano suuqan Karmel bal isku day inaad Karmel martaan soo dhax martaan ragga intee tiri leeyihiin haweenka meesha ka shaqeeyana intee way leeyihiin waxa aad tiro badan way xaqiiqatan waxaan rabaa 10 dheer oo ku saabsan afka hooyo iyo qiimaha uu leeyahay iyo markii laga hadlayo qurba joogta qiimaha uu afkeena ku fadhiyo inaan xaqiiqatan wax dheer ka qoro ama ka dhaho hase ahaatee waxaan filayaa barnaamijka intiisa badan oo timaadeen inay tahay barnaamijka caawa oo qurba joogta sida gaar ah u leeyihiin oo ku saabsan soo dhaweynta Axmed Naaji iyo barnaamijkan qurba joogtu ay leeyihiin maadaama barnaamijku xoogiisa halkan uu soo jiro maantana ay tahay maalintii afka hooyo ee caalamiga ah waxaan u maleynayaa dad badan inay isweydiinayaan maanta halkeebuu afkii Soomaaliya ku dambeeya ama ku dambeeya haatan waxa isweydiinaya ubadka meeshan lagu dhalay iyo kuwii ka soo horeeyay oo ayagoo yar yar la keenay af Soomaaliga heerka ay ka taagan yihiin marka anigu aan ku dheeraanin oo hadal dheer aan galin ba waxaan halkan ku hayaa talooyin oo aan u hayo qurba joogta ama golahan ismagacaabay raalli haadaan ismagacaabay afkii aan nooga bartay wax walba la ismagacaaba golahan isagu u istaagay inuu wakiil ka noqdo dadka reer Minnesota inaan qodobada halkaan ku qori doono aan gaarsiiyo waxaan halkan ku soo koobayaa talooyinkaas heestaan markan idin soo wadno halku dhigeedu waa eebow arligoo nabada annagoo nabada ummadoo nabada erayadii Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Amiin iyo laxankii Axmed Naaji Sacad ila soo dhaweeyay fanaaniinta iyo Axmed Naaji Sacad
ebo anago nabada ebo wadigo nabada ebo umato nabada ebo wano manahe ebo wano manahe ebo anago nabada ebo ardigo nabada ebo mato nabada ebo wano manahe ebo wano manahe ebo wano adduunyaduna ay jeceshahay inay nabaddu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay umiyuhuna ku nool yahay in la dhowrawa واجب أيتاي أميونا كنول يا هاي إلا دولة واجب أيتاي سيدا وذا أكسرنا محان إلى زوينا سيدا وذا أكسرنا محانو إلى زوينا إبو أنغو نبدا إبو أرضيكو نبدا إبو مطو نبدا إبو وانو manahe ebo wano manahe ebo wano manahe ebo amin ebo anago nabada amin ebo ardigo nabada amin ebo mato nabada ebo wano manahe ebo wano manahe ebo wano manahe ebo amin mar kale ha loo sacbiyo Axmed Naaji Sacad iyo fanaaniinta aad iyo aad baad u mahadsan tahay faanoole fare kama qodna marba midba mid ay ka darantaan idin soo wadaa laakiin waxaad haatan ila soo dhaweysaan maxamuud cabdiraxmaan beenabeene oo ah madaxa Minnesota Chambers of Commerce oo aan jeclahay inuu isaguna xafladda hadallada ku aadan ka soo jeedo maxamuud soo dhaw dhammaan waxaan rabaa inaan idinku salaamo salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waxaa halkan ka muuqdo wiilal iyo gabdho aqoon-yahamiin odayaal professionals dhalinyaro dad aad u wada libisan oo diyaar u ah inay kaalin ka qaataan launchingka amaba aas-aasidda global Somali diaspora chapterkeeda Minnesota ama daahfurka ururkan qurba joogta Soomaaliyeed chapterkiisa Minnesota waa habeen aad u qiimo badan waa habeen sharaf badan oo reer Minnesota ku weyn waxayna ugu weyn tahay hal aas oo ah in aynu
xubin muhiim ah oo qiimo leh diaasbarada ama qurbo joogta Soomaaliyeed ee adduunka ku taal inaynu u nahay tusaale fiican sharaf bay inoo tahay waxaynu ugu nahay cududda iyo dadnimada aynu leenahay tirada aynu qabno aqoonta aynu leenahay dhaqaalaha aynu leenahay fahamka iyo dadnimada reer Minnesota aynu ku nahay dhammaanteen reer Minnesota waa wax sharaf inoo wada ah soo saas ma soo marka sidaas awgeed caawa marka qadiyadan aan u fadhino sharaftaas ay leedahay soo marka koo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Ilaahay oo arintaas noo suuro geliyo in caawa sidaan sharafta leh ay noogu dhacdo marka labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo dadkii ka shaqeeyay barnaamijkan qiimaha leh ee aad ka u qurux badan ee arkaysan sida loo qurxiyay iyo hotelkan iyo xafladan sidaan la isugu dabariday maysan iska dhicin wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa suuro geliyay inay sidaan u dhacdo hal mar waxaan idinku codsanaa inaad igu sacbisaan oo aad soo waad mahadsantihiin midda labaad waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan laba qof oo marti inoo ah ayaa caawa reer Minnesota nala jooga qaasatan xafladan oo arintan oo kaliya ugu soo safray dunida dacaladeeda ugu sarreeyay London iyo Dubai waxa inala jooga gudoomiyaha ama ninka hormuudka u ah ururkan caawa budhigiisa halkan lagu suubinayo ee Global Somali Diaspora walaalkeen Cabdi Baruud igu sacbi please qiimaha ay leedahay qof inuu soo safro diyaarad inuu soo qaato oo inta imaado waa dareemi kartaan waa mas'uulka leaderka organization kan dunida oo dhan qurbo joogta Soomaaliyeed leader ku ah sidoo kale waxa nala joogo caawa ku raaxaysanaysan halyeeyga al-ustaad Ahmed Naaji Saad sidoo kale igu sacbi insha Allah walaalayaal daahfurka ururkan qurbo joogta Soomaaliyeed qiimaha uu leeyahay caawa ee inteenaan halkan fadhino aynu marqaati ka nahay oo ay sharaf inoo tahay in caawa furitaankiisa aad kaalin ku yeelataan gabdhaha iyo wiilasha dhamaantiin waxaan rabnaa inaynu caawa inay furitaanka bis lama raba laakiin inaynu isku dhiiri gelino in aynu members ka noqono in aynu taageerno abuurida cudud midaysan ee Soomaali qurbaha oo ay ururkan 7 bil ka hor July baa lagu aas-aasay Turkey waa laga launch gareeyay almost gobolada kale ee London iyo Sweden iyo Muqdisho oo caasimada Soomaaliya caawo kale inta 21 waxa lagu qabanayaa Phoenix reer Minnesota waa anaga Washington DC hore ayaa loo qabtay waa dareemi kartiin adduunka dacaladiisa kala duwan in sidaan loo launch gareeyo oo aan anagana kamid noqono waxay sahlaysaa inay budhig u noqoto midnimada Soomaali qurbo joog aad u xoogan oo Soomaaliya wax ka tari karto واتهاي وحان هاتنا جعلها هنا دي لسو دويسان شيخ عبد الرحمن شريف واه إمامك مسجد كدار الهجرة إسلام مركزنا قطبات هالكن إنه جيدين دون قطبات دي ساسو طبعا أي كم من نقول دونتو قرحيدي كدعي مقالة مقدسة يدور كنجادا إلى سو دوية شيخ عبد الرحمن شريف بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه هر إلهي ومهدسك الله سبحانه وتعالى إن قدق مسلمين يسوق كان هل كان إنه عافمات قبنا إنه نبض هاي السنة إنه أن السجون نمد دن جود أو inaan taageerno tusino inaan taageersanahay Somali Global Diaspora ama ururinta dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inaan soo dhaweyno Ustaad Ahmed Naaji Saad inaan ka qayb qaadano ururinta ummadda Soomaaliyeed aad baad ugu mahadsantihiin inaad ka soo wada qayb gashaan oo isugu nimaadno waxaan mahadsan oo kale dadkii xafladda soo abaabulay iyaguna aad u mahadsan yihiin waxaan doonayaa marka daqiiqadaha soo socdaan dhowr waxyaabo isla wadaagno midda koobaad marka waatan waxaa la yiri waxaan rabnaa qaraxii ka dhacay jumcadii inaad wax yar ka tiraahdo marka intaana qaraxa wax yar ka oranni waxaan doonayaa qof kasta oo idinkeedan ka mid ah oo laga yaabo inuu Facebook ku jiro inuu iska daayo oo marka uu dhageysto waxaan sheegayo waxaa kaloon doonayaa
in badan oo kamid ah hadaayta waxaan ku jirnay farxad iyo xoogaa rayn iyo baan ku jirnay iyo caadifada iyo dareenkeena la hadalo hadda waxaan yara doonaynaa arrinta dhabta ah inaynu si sax ah isugu tilmaano farta fiiqno mushkilada sida darteed maalin hore waxaan ka isbitaal baan ka shaqeeyaa marka waxaan ka qayb galay qof xanuunsan iyo wixii loo qaban lahaa marka waxaan ku xidhayaa arrinta dhimashada marka qofkii xanuunsanaa dadka luqada yaqaan isbitaalada waxaan adeegsanaa wax la yiraahdo care conference marka qofkan xanuunsan isagu marka laga yaabo xaalad adag inuu ku jiro ayaa waxa isugu imanaya dhakhaatiir kala duwan nursing kala duwan qofka xanuunsan dadkiisii dad kala duwan oo xataa laga yaabo qofka traditionkiisii iyo diintiisii ay ka socdaan kadibna waxa laga wada hadlayaa qofka iyo qaabka ugu haboona oo wax loogu qaban lahaa markaan ka qayb galay waxa qolka timid 11 qof ilaa 13 qof ayaa qolka soo fadhiisatay oo hal qof sidii loo badbaadin lahaa isugu timid 3 qofna Skype-ka ama telefoon baan iyaguna ku soo galeen dadka 15 qof ka kooban hal qof baa waxaan ka hadlaynay marka qofkaas xaaladda khatarta ah ku jira qaabka ugu haboon ee qofka loo badbaadin lahaa xaaladiisa haddaad marka isweydiisan waxa inaad tidhaahdeen talow qofka 15 qof ka badan ay isu imanayso oo laga hadlayo xaaladiisa talow ma duqa magaalada miyaa governorka gobolka laga doorto miyaa nin madaxo dhaqaale badan miyaa qofka dadka intaas oo dhan isugu imanayaan laga hadlayo qaabka ugu haboona wax loogu qaban lahaa loo badbaadin lahaa waayo waxaan markaa inaan idiin sheego qofkaas wuxuu ahaa qof madow wadanka qaxooti isagoo yimid ayuu ahaa wuxuu ahaa dadka aniga iyo idinkoo kale oo afka aan ku hadlaya ayuu ahaa marka qof haddaan saa marka u badbaadinayno oo halkan aan ka shaqeyno in qof saa loo badbaadiyo ka waran kuwa magac diineed dadkii oo jumco ku jira ku laynaya marka waa ayaan darro soo maaha kuwaasu waxaa la hubaa falkay geysanayaan dad badan buu diinta ka saariba dadku waxay isweydiinayaan kuwan iyo diinta sheeganayaan hadday noocan tahay waaba khatarba laakiin waxaan rabaa inaan sheegno kuwaas iyo falkoodu diinta islaamka ma matalo kuwaas islaam shaqo kuma laha kuwaas islaamkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo soo diray ma wadaan taa marka waxaan rabaa qodob inagoo dhan inaga wada dhaxay inuu noqdo oo diinka adiga iyo aniga inaga leh diinkuna waa naxariis iyo noolayn iyo badbaadin weeye sida darteed wixii arintaas geystay iyo arintaas meesha ka dhacday qaabka ugu adag ee wax loo dhaleeceeyaan u dhaleeceynana waana ka xunnahay waxaan leenahay dadka dhintay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u dambi dhaafo ha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u boogadhayo ha caafiyo kuwa dhibka geystayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naga qabto intaas marka waa qaybtaas weeye qaybta labaad ee hadalkayga walaalayaalow hadday intiinan oo si kala marka loo dhigo dadka waxay yiraahdeen af Soomaali ha lagu hadlo waxaan ka baqay marka qaarkood af Soomaaliga wuxuu naga dhaxgalaya marka luqada baranaysid laftaada saad isugu day inaad luqada u barato marka eriyaa ka dhaxgalaya maxaa jira luqad kala la kaca ku fayna inaan ku hadallo oo baranno marka eriya badan baa marka ka dhaxgali laakiin waxaan isku dayay inaan Soomaaliyeed suuragala marka waxa tihiin haddaad ila fahamtaan labeentii bulshada ama dadkii bulshada ugu muhiimsanaa ayaa tihiin qaybo kamida waxaan rabaa marka dhab ma tahay inaan Soomaalinimo raadinayno su'aasha in la isweydiiyo way aniga ma rabo intaan qosolo inaan faraxno dhab ma tahay inaan raadinayno okay haday dhab tahay marka waatan waxa rukaad waatan iyo baa markii la wadaago kaftar kadib waan ka bixiba waxa la yiri markii dawladda militariga ahayd ee burburtay ee wadanka timid raggu waxa u banaadeen dadkii Soomaalida waagaa jiray in badan waxay noqotay askar
أنا مركب واحد ربعين إذا لك افتماه ولا ليالو أسكرت موحى لون نقد ودن جعيل يودن إلا الدفاعه مسوحة هاي أسكرت واحد كلية نقالة يمينس هيستي واحد كلية أود نقالة نقول سمين كلية يقف وكنا ولكن وإحنا كل حكومي كراية هاي أنا واحد اسكو قنعي أسكري في عنه وجري إن بدروا كم إذا واحد الله قالي واحد هاي ماشى نقالها إيو وناقو إيو واخترك إيو إن تطلع حكومة أي تعلبة هاي تاسو حي كانتي إن يسأل الدويد مركي نبر برناي ودولد نجابر برتاي شن وسير قاشاندك أو دولد النظام مرتاي شن وسير قاشاندك ويا مد ما هلا ما شن إن يتجان ودمد الدرس كأيوه دوري إن هو سوقاتان سيدات كودي كلا أولايان مركي مسومالي نبى أسكري يقولي مسوح كانوا يقولي أسكري مركي إن بدروا كم ذا خسارنا مركي ودنا كنا بربراي أنا جاب يقول دارا مركب بريح وداد بالله هذا يا دتك إن بدان وكمدوا مركب ودادين نقدين إن بدان وكمده دتك ودادين نقدين مركب حلار كيسا الدكان والبودات باكسو جيدا بزنس والبودات باكسو جيدا بزنس هذا هذا أقول حق من صوماليا ودادها هيستا شعب كينتي آمنين بوداددي waxa loo dhiibay wadankii oo dhan waxaan ognahay Kismaayo iyo Boosaaso inay wadaadada kale noo maamula waan ognahay Soomaha say u socotay markii wadaadkii wuxuu galay wax kale iska daayay inuu qabrigii soo qufto oo dadkii dhintay 100 sano ka hor qabrigooda uu soo fagto oo magaceeda ku soo fagto marka wadaad badan oo in badan oo fiican baa jirta laakiin in badan oo ka mid ah wadaadka magaciisa uu halaabay hadda marka intaan u soo socdo waa intaan marka aqoonyahankiyo diasporihii global Somali global dadka dibadda joogo idinka iyo waxaad samaysaana waxay ka soo bixi doontaa 10 sano soo socota Sheekh Cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay Axmed Naaji ma ku laabanaa marka waayahay waxaan soo qabanayaa heesta hal ku dhigeedu yahay dalkaygo dushaadu ku daree waa barwaaqo dalkaygo heestan waxa abuuray Allah u naxariistay miraheeda Cabdi Maxamed Amiin laxanka waxa sameeyay Axmed Naaji Sacad mar kale ila soo dhaweeya al-ustaad Axmed Naaji Sacad iyo qobolada
la soo tallaabay dalkaygo markay dihatee sundaacday ayaa nafta la soo tallaabay dalkaygo يا إسقاري فأنا هو لفريق مقدنا هاي واتهاي وحنجعل هاتنا إن هذه لسه دويسان بدنا عبارة بركة ورمها دانجلنا قبلها اللي هو دو يرجع جقوايا برامبر ممكن عسنتين عاونا برامبر عودينا أمرك هذا كنت أجنات واتهاي واحد لسه دويسان ويل عنب شقدون وينوسو جديد نيسه برامبر كوبان ويلو سورو أما دعال سيدنا من عالمين تاتمت أما دعال سيدنا من عالمين تاتمت إسي شرف مودن سلام بانو علينا أما دعال سيدنا من عالمين تاتمت إسي شرف مودن سلام بانو علينا قابا عصوهن تاي عالم باندل سورا هيا قابا عصوهن تاي عالم باندل سورا هيا فارتون عود دهنكو وادو علمين فارتون عود دهنكو وادو علمين علون لا سهي دهن تنا لو علاقي علون لا سهي دهن تنا لو علاقي إبريو كورا عسيس بلغو برياي علان كسامة هاليدو إرشيغ كنور إركادك تخي ربي كي عوينا كوسي الله سوعلي شرف تادي عافي موت وعد سرق بعضو عيني وعوالي ورعد سرق بعضو عيني وعوالي ميداب كبولو قلب دانتي سوان شعلا بيلي يحيد له الله آدم بايله نقر بيلي يحيد له الله آدم بايله نقر دادكي كالبادي أيانا حيث صبحت بلشادو صعبك هبلا بين هبرت أمان قيرات كارديغا كبوحة صبر غضا الله باقيه نصيب وركان لحي أدوغو باقي
nasiiba warkaa lahay dhirlaabka Soomaali miyaa la bareere jiray raggii biladga heesi qaato burjigaadka kuma dooste biladay barkeemo allow bitigiina cid kale tahow badalaan waata aad baa u mahadsan tahay fanaaniintii baan dib ugu laabanayaa laakiin inta ka horeysa waxaan rabaa Soomaalinimadeena iyo karjarkeena Soomaaliyeed inuu dalkan Mareykanka ka shaqeeyo oo ka hirgalo waxa naga caawiya dad aan Soomaali ahayn oo Mareykana waxa in dhaweyd magaalada Minneapolis lagu soo bandhigay bandhig faneedyo ay soo abaabuleen isla markaasina lagu soo bandhigay Cedar Cultural oo ku taala xaafadda ay Soomaalidu degan tahay fanaaniin Soomaaliyeed ayay dalka dibadiisa ka soo casuumeen marti sharaf ayaa inagala joogta oo aan rabaa inaan u mahadnaqo markaan u mahadnaqayna aad igu sacbisaan waxa kamid ah Steve Herzog oo ah nin oo muusikista waxa kale oo kamid ah Andrew Dorn oo iyaduna maamusha Cedar Cultural waxa sidoo kale kamid ah Faadumo Ibrahim oo ah gabar Soomaaliyeed oo u guntatay in dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed iyo Islaamkaba lagu turjumo qaab suugaaneed dadka Mareykankana la baro inaanu Soomaalidu argagixiso un wada ahayn Faadumo sidoo kale musiga heesaha Soomaaliga lagu tumo ninka mas'uulka ka in dad cadaan ay heeso Soomaaliya garaacaan waa Bob Stack oo aan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan oo hadal kooban siinayo Bob soo dhawow Thank you very much. I'm Bob Stack, and I represent the Cedar Cultural Center in Augsburg College, and have had the chance to work with Manaji on keyboards at our last concert at the Cedar Cultural Center, and it is an honor to be here with Ahmad Naji and be able to hear his wonderful music. And for us, when I look at the sign, it says Somali, Global Somali Diaspora. I think what could be a better way to celebrate and keep your culture together through music. It tells a story of peace, love, and where you came from. And I think it's the most important thing in the world to preserve your story and your wonderful culture through music. So thank you from the Cedar Cultural Center and Augsburg College. Thank you, Bob. Hello, Sabi Markale, Bob. ma sahlana in dad aan Soomaali ahayn sida ugu guntadaan dhaqankeena marka dadka noocaas oo kala aan ilaashano ee doonaya inay Fox News naga difaacaan aad baad u mahadsantiin waa tahay waxaan jeclahay haatan inaan mikrofoonka igula soo dhaweysaan Sadiq Warfa oo ah gudoomiye ku-xigeenka Somali Global Diaspora isla markaasina ah nin reer Minnesota Sadiq Warfa ila soo dhaweeya Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa anagoo daafureyna inaan qalbigeena ku hayno in shalay toole ay dad Soomaaliyeed oo fara badan ay ku geeriyoodeen magaalada caasimadda hoteelka Central Muqdisho Soomaaliya waxaan idin ka codsanayaa dhammaantiin inaan muddo hal daqiiqo aan u duceeyno dadka Soomaaliyeed oo ku geeriyooday suicide bombkaas inaan qalbiga ku qabanno oo Ilaahay uga barino jannadii inaan hal daqiiqo u duceeyno dadkaas aad iyo aad Ilaahay dadkaas waxaan uga barinay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo walaalayaal waxaan doonayaa inaan marka u mahad celiyo guddiga qabanqaabada xafladan qurxoon oo aan ku daafureyno Global Somali Diaspora Minnesota Chapter waxaan doonayaa inaan wax yar idin kala wadaago hadafka Global Somali Diaspora oo af Soomaaliga lagu yiraahdo golaha qurba joogta caalamka Soomaaliyeed anaga urur waa ka weynahay waxaan nahay golaha waxaanu midaynaa dhammaan marka waxa weey golaha qurba joogta caalamka Soomaaliyeed waxaan maanta bisha February 21 daafureynaa qaybta Minnesota
waxaan marka hore doonayaa inaan guddoomiyaha Minnesota Fartuun Cabdulle iyo qabanqaabiyaashii xafladan oo ugu horeeyay injineer Jabiil walaalkaya iyo intii dhammaan la shaqeysay inaan u mahad celiyo anigoo doonaya inaan hal mar u socodsiin u mahad celinaa shaqada wanaagsan aad doonaysiin anigu waxaan idin kala hadlayaa Global Somali Diaspora waxaan noo qabsoomay muddadii aan jirnay meesha aan u soconno waxaan kala doonayaa intaan khudbadeeda furin aan ku hadalno in talaadadan soo socota bisha tahay 24teeda aanu qaban doono remittance town hall meeting arinta xawaaladaha oo aan u istaagnay haddaan nahay Global Somali Diaspora arintaas annaga waxay noo tahay cause waxaanu organize gareynay annagoo la shaqeynayna bulshaweynta Soomaaliyeed ee culimada iyo ganacsatada iyo dhammaan dadkoo dhan inaan talaadadan hallka safari waxaa idin jeclaan lahaa dhammaantiin aad ku marti qaadan tihiin inaan nagala soo qayb gashiin media ayaa imaanaya waxaa organize gareysay Global Somali Diaspora because Global Somali Diaspora waxaanu u taaganahay mabaadiidan ugu waaweyn waxa weeye inaanu ka shaqeyno danta guud xawaaladaha danta guud weeye talaadadan 5 PM waxaan idin ka codsanayaa dhammaantiin inaan noogu imaataan town hall meetingkaas aan uga hadlayno arrimaha xawaalaha waxaan naga go'an haddaan nahay Global Somali Diaspora inaan u istaagno oo adeegno danta guud ummadda Soomaaliyeed walaalayaal Global Somali Diaspora waxay ku timid hadaf dad Soomaaliyeed isku tagay oo raadinayay waxa naga dhaxeeya oo ah Soomaalinimo iyo Islaamnimo bishii June shir ka dhacay magaalada Istanbul ayaa waxa lagu doortay guddiga fulinta waxaan kaloo leenahay guddiga boorka iyo geed fadhiga waxaanu leenahay 20 wadan ayuu ururkan ka dhisan yahay wuxuu kaloo ka dhisan yahay 22 Mareykan gudihiisana wuxuu ku leeyahay 3 qayb iyo Canada oo 2 meel ah Mareykanka waxaan ku leenahay chapter waxaan ku leenahay mataqaanaa Virginia Washington DC area waxaan kaloo chapter ku leenahay Ohio waxaan chapter hadda maanta la furayaa daa furinaa Phoenix Arizona oo aan doonayo inaan daqad qaata u mahad celiyo Abdi Muuda iyo dadka Arizona oo maanta furaya inaan u mahad celiyo Global Somali Diaspora waxaan kaloo ku leenahay Canada Alberta iyo Toronto Global Somali Diaspora idinka yaa iskale waxyaabaha naga mamnuuca waxa kamid ah waxyaabaha siyaasadda iyo waxyaabaha aan isku dilnay oo la keenay halkan waxyaabaha u taagana waxa weeye danta guud ummadda Soomaaliyeed inaan ka danqanno qofka Soomaaliga ee wax lagu yeelayo South Africa sidii wiilkii Cabdi ee lagu dilay dhagaxa inaan u doonno oo u istaagno sida hadda aan ugu istaagayno oo tusaale ay noo tahay waxa ay dadseena wax practical ah midaan hadda aan u istaagno remittance ka arrimaha xawaaladaha arintaas xoog ayaan saari doonaa Australia ayaa ka dhacday teamkeena Australia aan ku leenahay ayaa suurtageliyay in arinta in loo fududeeyo Global Somali Diaspora halkaas waxa noo yeelay sheet waxaan idin ka codsanayaa waxa ina dhammaantiin halkaan joogtiin inaad noqotiin members ururkan wuxuu ku dhisan yahay members wuxuu ka duwan yahay jaaliyadihii hore jiray sida la socotiin jaaliyaduhu waxay qabtaan adeeg lacag ayaa waxay ka helaan funding kadib wixii bay qabtaan annagu lacagta waxaan ka rabnaa idinka ayaa ka rabnaa waxaan doonaynaa waxa weeye $10 a month $120 whole year $120 way sanadkii lacagtaas adaa lagu adeegayaa board baan leenahay kadib adiga ayaa codeynaya shirweyne qaran oo sanadlii dhacay ayaa leenahay oo lagu dooranaya guddiga fulinta guddiga howsha gelinaya waa wax ka bilaabanaya grassroots from bottom up marka Global Somali Diaspora idinka ayaa iskale halkaan macaaw waxaan daahfurkan u nimid waxa weeye inaan ka faa'iideysano oo aan noo noqotiin members waxa halkaas yaala signing sheet ka inaad saxiidiin magaciina information nagu qortiin oo aan noo noqotiin member waxaan soo celinayaa fanaaniintii ka warrama fanaankii Axmed Cali Cigaal hoballadii qarankay waa bari caawa korkoray aan ciyaaraynaa waata ila soo dhaweeya Axmed Cali Cigaal
ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta duniyaha beeldhalatiyo sida qaansa lagu dhigaye ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta duniyaha beeldhalati sida qaansa lagu dhigaye timaheedan dhuxusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhu ay ku dheeshiyo midabkeeda dhinka timaheedan dhuxusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhu ay ku dheeshiyo midabkeeda dhinka waago dhalaalayba ma dhibicseer mawayda ma dhalaan la jecel yaha maxalay u bahadasho eegaha fidiyo ka dharqaday hareedo dharabkii ku yaalba dhalaalayba ma dhibicseer mawayda ma dhalaan la jecel yaha maxalay u bahadasho eegaha fidiyo ka dharqaday hareedo dharabkii ku yaalba shabaas shabaas haweno dhalideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaye jaleeca ibtada almaame wadamay haweno dhalideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaye jaleeca ibtada almaame Maidiman suleho dulkenna kunoshi kadaha shay urude Nabi Yusuf dalae hanalo dameya Maidiman suleho dulkenna kunoshi kadaha shay urude
nabi yusuf dhalaye ehanalo dameya wago dalalayba madibseer mawayda madalaan la jecelya maxalay u baxsho deegaha fidiyo ka darqaday xareedo darabkii ku yaalba wago dalalayba madibseer mawayda madalaan la jecelya maxalay u baxsho deegaha fidiyo ka darqaday xareedo ودعايا غسل با waxay la soo dhaweysaan waxaan aqsana ma liga dareema yaan liga dareemin in liga dareemo ma waaya waxay la soo dhaweysaan haatan Cismaan Axmed Abo Saalax waa ka saysid ma baabaha banaadiriga saaxiibkay soo dhow waa la ooy kulligiin waa salaamantihiin Soomaaliyeed quruxdiin iyo qaabkiina u jeedaa mid la mid ah ma jiraan adduunka dhan laga daawanayo caawa marka waxa isku sheegtaan niyadiina khayr u sheega heer Minneapolis waxaan u baahanyahay midnimo iyo isjacayl iyo qalbi furan hadaadan niyada iska furin wax ma noo soconayo illa imaado la baadhi garayo maaha dad baa dhigooda daadanaya ala kulli xaal maanta waxaan u dirayaa tacsiyo madaxdii oo meesha lagu laayay iyo shacabkii meesha ku dhintay ilaahu naxariisto marka Soomaaliya niyadiina fura meeshan wax baa jiro aniga waxaan ogay 1977 xamaran ka soo baxay elgaabtan baawur ka soo raacay had ilaa hargeysan tagi tuula kasta aan tago neefaan oo khali jirin tuula kasto sanolo jaclay firmaantane xamar weyn ishingaani isku soo kartid maxaa dhiga maxaa keeni runta barabtii Soomaaliya waxa fiican runta in isku sheego anaga waa damqaneena daahir banaadirnaay dhiigeena daadanayo hadda dhiigeena daadanayo gobolkeena la xumeeyay حمر عدي حمر مقدي الله قدقي حمر وين لو ناجا كلنا حمر وقت كيماتين وأمتي الصومالية يكون ولد واي حمر هداذن وناجنين صوماليا وحمني هجاجايو إذا شيشة نوجوغان أحسن أسميان ما أنت وحي قدام بيو إثيوبيا إيكيا وطنك كبحان إذا كفران واحد سنة دخل واحد سنة إذا ما أنت أباهنا مجرو قربها أنت أسبان كوجوغنا دل كان إدت كان وين دفاعنا هذا الهراء الله شيء دت كيودن بهادلي عاونا ومالنتي لحسي أفك الصومالية مركب وحنا سكوت ينا سكيل اليو إنجليش ناخد داره مركب رأيت بين سلام يا وأنا ماركتي حقيقة فرحت إن المرشن سوي استاجو أنت نوقف الصومالي الله الله فرينتي ده حي خصيصة ما دام ولا يروين للسوق عبيو أو ضد بدنا مهمة أي نهارين ولينا هادلان إن بدنا نفردني waxay ku saabsan tahay khudbadeedu kaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay macnaha shaqooyinka wanaagsan helay maartay iska fadhiya guryahooda aan ka qayb qaadanin hogaaminta bulshada Soomaaliyeed haday halka noqoto iyo haday meel kale noqotaba markii aad qof walba wax baranayo wuxuu baranayaa inuu maartay uu koow naftiisa ku anfaco marka labaadna uu bulshadiisa ku anfaco waxa هو مربل أن لا شك يصير اليوم الصوماليات أو أقونيهنا ربع كويس كشكتنا هين وحجرنا يا فكرة وناكسنا يكون دوجيهن صومال نمضي يورالت نمضي ربط هاي أن قبيلة وحاس حيرين حضنا شقوين وناكسنا سكايستو وحقال عقف عن كسمايان قريه هذا نسكفرديا مركا ما أركض اليوم سمها ويجوجان لكن ما بدنا ضد كانوا وحال هذا بقول كيبا لحن كبدن واسطة اليوم haddana markii la soo yimaado shararka dadkii waaweynaa yimaada dadkii waaweynaa ayaa hadla marka waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan fariintan gaarsiiyo inay ka soo qayb qaataan hogaaminta bulshada Soomaaliyeed iyagoo aan cidina u dirsan
waxaan doonayaa inay dhalinyaradu ka sugin inuu qof gacanta soo qabto yiraahdo hoggaankan qabo waxaa jira global Somali diaspora golahan la dhisay iyo golayaasha la midka ah in intaan isxil qaano dhalinyarada Soomaaliyeed inagoo maxay ahayd fikradeena iyo aqligeena iyo maalkeena kaashanayna inaan maxay ahayd ku hogaamino ummadeena Soomaaliyeed ayaan maartay dhalinyarada faraya haddii aynaan sidaas samaynin wadankeeni wuu burburay markuu wadan burburana waxa badbaadiyay dhalinyarada oo xoog leh oo macnaha aqligoodu caafimaad qaba marka haddaynan u kicin dadkeena ama kuwa inta jooga ama kuwa wadankii jooga Soomaaliya ma soo kabanayso waa inaan dhalinyaradu isku guntanaa oo isugu nimaadna golayaashadana aan soo galaa oo maartay inaga aan maamulaa GSD iyo kuwa la midka waxa loo baahan yahay in maartay aan qofna ka sugin inuu yiraahdo kaalay oo booskan qabo haddii aan sameyn weyno oo macnaha sugno inay saas dhacdo isbedel ma imaanayo waxa dhacaysa in dad kale oo laga yaabo fikradaadoo kale inaysan haynin aqoontaadoo kale inaysan haynin go'aamada inay gaadhaan halkaasna ay Soomaaliya inoogu dhamaato sida ayna yeelin inama qabato in maartay wadankeena uu noqdo wadan loogu yeedho Somalization markii wadan laga hadlay burburaya war wadankii ma waxaad ku wadaa inuu Somalization aad ka sameysad inuu Soomaaliya kala noqdo midaal noocaas loo soo qaata maaha mas'adan way gartay oo ujeeda marka intayna saas dhicin waa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay hore soo istaagaan qaataana booska looga baahnaa oo ay hogaamin ka qayb galaan insha Allah wadmaasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروا دماذي أبتجي يا دمي وحكي أو هرينا مجرته وحن ماشوا نمد وإن هالنقنا جودي كان حسب الصومالي global diaspora وحن كلو نربي أنا وقال لي مجاعة Somali community of Minnesota إن أندرو تعسي دتكي سيدا حقدرة لو جودي لي مجال مقدشة أنا ولي بقول لي مجاعة مقدشة سيدا أبتجي شيء runtiis waa muqdisho aad loo xumeeyay waan u baahan tahay in la xaal mariyo markaan waxaan leeyahay ku soo dhawow Soomaaliya waa maadsantiin هارون هذا كسي fiican rekoorkaas in la sii jabiyaa rabaa marka dambe ilaa hal second hadal ku imaado aniga lafteeda gabagabadii ayaan ku siqayaa sidoo kale Somali global diaspora meelo fara badan oo dalka ayuu ka furan yahay waxayna la joogta mas'uuliyad ka socota gobolka North Carolina waxaad ila soo dhaweysaan haatanna Zahra Abdi Shirwac waaba aad aan ugu faraxsanahay in soo gaabi leeyahay war dheer ma haysanin awalbo ya marka sidoo la idin sheegay waxaan ka imid gobolka North Carolina waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan aad ku wanaagsan runta markaan idin sheego intaan oo qofood oo Soomaali ah waxa iigu dambeysay aragooda 25 sano 26 sano ka hor markaan Soomaaliya ka imiday marka caawa farxad gooni ay tahay inaan ka soo qayb galo oo aan idin imaado marka waana tan ku dheeraanay arrintii oo soo gaabi leeyriye waxa kaliyo aan raba inaan idin sheego waxa waaye cudurkan haayo Soomaali hadaan nahay iyo dhibaatada hayso intii iga horeysay oo dhan ay idin sheegtay laakiin waxa kaliyo aan raba inaan ku daro waxa waaye markii qof bin aadan aad wax ka hadlayso oo aad qalad gasho sida ugu wanaagsan ama ugu degdeg badan oo qofkaas aad ku bogsiin karto waa inaad si daacad ah oo run ah oo yani brutally honest ah aad tiraaho qofkaas waxaas iyo waxaasaan ka hadlayay ee iga raali ahaaw ya marka haddii aan rabno Soomaali hadaan nahay inaan isu calool fayoobaano marka ugu horeyso waxay ila tahay inaan qirano wixii aan iska hadlaynay qof walba oo naga mid ah dambiyo galay dambina waa laga galay marka si aan bogsasho cusub u gaadhno oo aan mid degdeg u helno qof walba wixii pride kugu jiri jiray ama wixii kibir kugu jiri jiray ama wixii isla weyni kugu jiri jiray waxaad ka hormarisaa danta iyo walaaltinimada iyo isu imaashaha qiimaha ay leeyihiin oo intaad u tagto qofkii aad dhahdo waa ka gardarnaay waa qaldamay bini aadan aan qaldamin adduunyada ma jiro ya marka inaad si daacad ah hadii ay run naga tahay kulligan inaan heshiino inaan u dhahno waa qaldamay hal iga raali ahaado qofkii loo tago qofkii loo soo hoydo hooyashaan dhihi jirnay annagee qofkii loo soo hoydo loo yimaado inaadna sii qodqodin
oo aan dhihin intaas ma ahayna waa ka badneed oo intaasaad yeeshay oo kanaad yeeshay 25 sano 26 sano ka soo wareegatay qof xasuusta ma jiro haddii lagu yimaado oo ay daacadnimo iyo walaalnimo tahay oo raalli ahaaw lagu yiraaho adigana waxaa kugu waajiba inaad ogolaato aad qaadato tan labaad oo aan degdeg raba inaan wax yar uga taabto waa dhinaca dhalinyarada sida idaacadaha iyo miidiyaha iyo meel walba oo laga hadla nooga muuqato magacii Soomaalida kaliya ma ahe magacii Islaamka waxa lagu haayaa dagaal aad u weyn waxa kulligan waajib nagu ah in sheekadana la ka dhisay iyo magacana loo bixiyay haddaan Soomaalinahay ama haddaan Muslimnahay inaan qof walba naga mid ah ka dagaalano sida la idin sheegay North Carolina ka imid mana raba inaan ku dheeraade waxaad idaacadaha ka maqasheen 3 qofood oo dhalinyaro ah oo Muslim oo lagu dilay Chapel Hill North Carolina markaan runta idin sheego dadkii ay ka dhinteen ama walaalahood ama saaxiibadood yaani marka laga soo tago intaan adduunyada joogay ma xasuusto sidaan ugu ooyay dadkaas qof aanan aqoonin oo aan ugu ooyay ama itaabtay sababtana waxay ahaayeen dhalinyaro waxay ahaayeen aad iyo aad u qiimo badan oo yaani diinkoodii iyo dhaqankoodii iyo yaani Amerikaannimadoodii iyo bani aadamnimadoodii sharaf u yeelay marka magaaladii oo 3 magaalo isku dhagan dadkii deganaa oo cadaan leh oo madow leh oo muslim leh oo non muslims leh oo maxay ahayd madaxdii dawladda governorskii iyo maxay ahayd in the attorney general anybody oo wax jaamacadii ay dhiganayeen cid walba soo baxday marka dhalinyarada caawa joogta halkan waxaan rabaa inaan xasuusiyo mas'uulka ay dadkaas qaadeen iyo example-ka ay nooga tageen inaan xasuusiyo oo mid walba oo naga midahi uu yahay ambassadors of their faith and culture inaad tihiin oo yaani in haddaad wanaag adduunyada ku joogto qofku jecel iyo mid ku xun labadaba ma inkiri karaan wanaagaadii marka sidaad adigu rabto magacaad adigu rabto dadka inay kuugu yeeraan waa inaad adiga isugu yeerto inaad adiga isugu yeerto haddaad rabto inaad qof Soomaali fiican laguugu yeero waa inaad saas u dhaqanto haddaad rabto in qof Muslim fiican laguugu yeero waa inaad saas u dhaqanto maxaa yeelay qofka xataa hadduu ku necab yahay respectiga sidaad ogtihiin ma aha wax lagu siiyo hadiyad ma aha waa waxaad kasbato adigaad earn garaysay marka taasaan ku soo gabagabeynayaa waan ku faraxsanahay waana mahadsan yihiin dhalinyarada soo qaban qabaabiyay iyo intii casantay oo dhan habeen wanaagsan
هذا بيت كيغايو هذا مبقى كوكو هيا ويقولوي بحبه يو قديم ويقولوي وح مبير السيب هذا بارود كعبك هذا نعب كعبك ويقولوي بحل أنكو جاين ويقولوي هاو بير لبلان ويالو بير كحجاب بولوي مور يا تمليو بولوي داي داي مندوق ستيو بولوي تشري او بقابا بولوي كوا بليلي قادا بولوي بربر كاغا شعل بولوي اسبا هاي ستادا بولوي افر بوك اخريه بولوي بيتنا انا خون بولوي بحل انكو جاين بولوي هاو بير لبلان ويالو بيلو كحجاب بولوي قاعالكاغا باي بولوي ددكي باراكاعي بولوي باهيدا وقوعي بولوي والو برمادي بولوي بري انفوغين بولوي وقتي قيس بدري بولوي برشادو نبادا بولوي بطر بالا تومن بولوي بحل انكو جاين بولوي هاو بير لبلان الله بيرو كحجاب واتهاي aad baa u mahadsantahay Axmed Naaji Sacad waxaan siin doonaa Axmed Naaji Sacad abaalmarin weyn oo aan ugu talagalnay oo aad goobjoog ka ahaan doontaan hees gabagabahana way soo socotaa intaan gabagabada gaarin waxaad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha inta aan gudoomiyaha u yeerin waxaan rabaa inaan hambaliyo u jeediyo dadkii xafladan soo qaban qaabiyay oo aan jecelahay dhamaantood inaan u mahadnaqo magacyadooda ayaan magacooda hore sheegaya qof walba markaan tilmaamo gacanta ha taagto waxaan u mahadnaqayaa Fartuun Sadiq Warfa Safiyo Faadumo Diini Ciise Cabdikariin Busaad Cawaale iyo Beene iyo dhamaan intii ka soo qayb gashay waliba Shaafi oo isaguna barnaamijka sidoo kale gacan ka geystay waxaad haatan ila soo dhaweysaan iyo waliba injineer Jibriil Afyare oo de horaan u sheegnay Jibriil isaga kama inaan tagin hadeeyte waa tahay waxaad haatan ila soo dhaweysaan gudoomiyaha Global Somali Diaspora oo wadanka Ingiriiska inooga yimid oo khudbadii caawa xafladda loogu talagalay halka inooga soo jeedinay ila soo dhaweeya mudane Cabdi Baarud maxaa dhaca shacabka ma laga qiyaanay maxaa dhaca loo sacbiyo Cabdi Baarud السلام عليكم caawa waa afkii waa maalintii loo dabaaldegay afka hooyo habeen wanaagsan ma fiican tihiin
sidee tihiin maxaa haysaan sidee tihiin maxaa iskugu kiin dhacaya ma faydaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa joogo Minnesota oo ah meelaha lagu yaqaano dadka Soomaaliyeed qurbaha jooga meelaha ugu firfircoon lagu yaqaano meel dadkuna ay wax u qabtaan wadankooda nafahoodana wax u qabsadaan haddii tartan la geli lahaana inkastoo tartan wali la gelin waxaan hubaa Minnesota inay qaadi lahayd firfircoonida iyo waxqabadka iyo wax wada qabsiga maybe London inay ku soo yara dhawaan lahayd laakiin waxaan aad u hubaa inay meelaha ugu sarreeyay geli lahayd dadaan qaadi lahaynba hadda waxaan ka soo noqonnay wadankii hooyo gaar ahaan caasimadda Muqdisho runtii way muuqatay dadka Minnesota waxqabadkoodu hadday dawladda u shaqeynayaan hadday ganacsatada yihiin intaba way muuqatay marka runtii aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan caawa idinla joogo oo aan kala soo qayb galo meel aynu kaga hadlayno danaha dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta iyo walaba danaha wadankeena insha Allah marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Ilaahay baa mahad leh dadkii soo abaabulay soo agaasimay ee isku soo dubariday ee waqtiga soo galiyay shirkan ama madashanaynu caawa iskugu nimi oo magacyadooda hadda la sheegay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa runtii gudateen waajibkiinii waajibka aad gudateen waxa weeye waajibka dadka Soomaaliyeed la iskugu keenayo oo lagaga tashanayo aayahoodii marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa fannaankeena abwaankeena weyn oo runtii in badan oo 50 sano ka badan u soo taagnaa oo aan ka daalin baraarujinta wacyigelinta dhiirigelinta waxbaridda dadka Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa oo runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan arko Axmed Cali Cigaal caawa Axmed Cali Cigaal anigu waan dhageysan jiray weligay laakiin weligay ma arag caawa igu horeysa marka inaan halkan ku arko oo heesihii waan dhageysto live u dhageysto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa dadka fanaaniinta ah ee reer Minnesota qurxaha badnaa halkan joogay taas waa waxay kala madamada kala ku dheertiin inta badan wadamada kale fanaaniin saas ma u organize ma laha marka waa aad iyo aad baan iyagana ugu fahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada soo ka qayb qaatay dibadda inoo joogay inoo ilaalinaya waxaan u sii garna u mahadnaqayaa dadkiina ka soo qayb galay waqtigan maanta waqtiga soo galiyay ninka xiriiriye ahaa wuxuu sheekadu igu adkeeyay wuxuu qodbadii ugu cajiibsanayd baa soo socota xaqii ugu dambeysana wiiga galiyay waqtiguna ma dheera heesiina way noo sii socdaan qudheed waxaan doonayaa heesaha inaan qayb ka qaato ma dheeraynayo markaa ma dheeraynayo Global Somali Diaspora golaha qurba joogta Soomaaliyeed waxa la sameeyay 7 bilood iyo 20 casho goor laga joogo waxa lagu sameeyay wadanka Turkiga maxaa loo sameeyay waxa loo sameeyay xigmadda ka dambaysa waxa weeye caalamka oo dhan dad Soomaaliyeed baa ku kala filaqsan dadka ku kala filaqsani dano baahiyo gaar ah haysato wadamo gaar ah kala deganaadeen xaaladaha ay ku jiraan ha kala duwanaadeen laakiin baahiyo ka dhaxeeya baa jira baahiyaha ka dhaxeeya siday u wala ilaashan lahaayeen in loo sameeyo gole ilaaliya isku xidha u dacwoodo ayaa loo sameeyay waxa la soo ururiyay marka la soo ururiyay intaas loo sameeyay waxaan markaa ku jirnay 6 bilood 7 bilood u jirnay dadkii soo sameeyay meesha iskugu yimi mooyaan in dadkii kale ee Soomaaliyeed loo tago loo sharaxo lala sheekaysto marka taas ay qayb ka tahay insha Allah marka la dhameeyo hawshiisana oo wadamada kastana laga sameeyay gudigiisa waa inuu hawshii qabto waxaan runtii aan ku faraxsanahay sida hore uu ka dhawaajiyeen anagu ma doonayna inaad nasiisaan libin credit aan shaqaysan waa inaanu dadka Soomaaliyeed anagu hanano waa inaanu la nimaadno karti waa inaan la nimaadno hufnaan waa inaan la nimaadno dadaal waa inaan la nimaadno dad ururis haddaan la iman weyna inta ma qalanno haddaan inta la nimaadnana taariikhda noqon insha Allah marka waan dabcan waa maalmihii ugu horeeyay baan ku jirnaa laakiin waxa aan la soo baxnay garaadkayga iyo aragtidayda iyo dadaalkayga iyo raganimadayda iyo dumarnimaduba ayna siiyaan ayaa runtii taariikhdu inagu qori doontaa insha Allah hadda maxaan dhahdaayay meelo badan ayaanu ka soo samaynay
hawlaha ugu waaweyn haddayna haysta qurba joogta la eego xawaaladu waa ka mid oo xawaaladaha waddan kasta Australia Sweden Norway Ingiriiska Mareykanka inta waa loo hajabaya waa la xidhaya waa waxaabayaal aynu isku kaashan karno oo haddii aynu waddan kasta aynu iska kaashano oo ka samayno maxaa dhahdayay aynu ka samayno inaynu campaign ka samayno waa waxaynu joojin karno waxa kale in haysta dadkeena South Africa lagu xidhay lagu dhibo dadkeena Kenya lagu dhibo waxa kale in haysta ma ogtihiin qofka Muqdisho ka soo duula ama Hargeysa ka soo duula ama Garowe ka soo duula markuu Nairobi u soo socdo in lagu joojiyo meel ka shishaysta Nairobi oo 2 saacadood la haysto dadtan hadana Nairobi lagu baaro wadanka waxa sameynaya waa wadan Afrikaan oo reer Kenyatia maxaa u maleynaysaan haddii aynu Ingiriiska Mareykanka Australia Dubai wadan kasta oo ay joogan dadka qurba joogan campaign ka bilowno dawladda Kenya ma u maleynaysaan inay joojinayso 3 bilood gudahood bay nagu qaadan kartaa inaynu ku joojino arrintaas oo kale dadkeena la dhibayo dad baa Liibiya nagaga xidhan dad baa Suudaan nagaga xidhan saynu waxyaabaha guud ee minayeen xuquuq qabsan lahayn iyo luqadda dadka Soomaaliyeed saynu ilaalin lahayd ayaa runtii ugu muhiimsan waxba kuma dheeraanayo shalayto waxay ahayd maalin naxdin ah dadka Soomaaliyeed murugo kule waxa agoomoobay oo aabayaashood ka dhigteen caruur badan oo Soomaaliyeed oo meelo badan oo caalamka ku kala nool hooyooyin ina malaha oo inamadoodii subaxdii ogaa inay nooleen ayaa hadda aan caruur lahayn walaalo adeerayaal eedayaal lahaa dad wal familygooda ayaa dadkoodii ka dhinteen 25 qof oo Soomaaliya inta la hubo waa inta dhimantay ayaa muddo ka yar 2 minute meel lagu dilay waxaan runtii samayn karnaa 2 wax arinta koow sidii wadaadkuba sheegay inaynu nidhaahno arintaas la sameeyay waa inaan dhaleecayno waana ka xunnahay dadka Soomaaliyeedna waxa magayaan diinteennana kama turjumayaan dadka waxa sameynaya koow talabaad aynu sameynayna waxa weeye dadka waxa u keenay dhibaatada hooyooyinka waayay maxaa inamadoodii caruurta aaba beelay ama hooyo beelay waxa u keenay oo ugu muhiimsan waa burburka waddankeena waxaan wax kaga qabsan karnaa kaliya inagoo marka hore gacmaha is qabsano oo halkan ka bilowno طبعا annagu markaan leenahay gacmaha is qabsada ma lihin annagana soo wal raaca waayo annagu waan isaan sheegay waanaan idihaanano waanaan idahadano tusna waxaan ugu soo raacdaan laakiin waxaan ka hadlayaa guud ahaan inaynu hadafka guud aynu qaadano in qof kasta oo Soomaaliyeed uu wuxuu faa'iidada iyo wuxuu wax ka tara mooyaane aanu dhibaato soo geysan waxna uu ka qabto marka arinta runtii murugadaas lahayd waxay noo tahay inaan aynu ku cilmi qaadano inaan wax ka qabano waa mahadsantihiin mar labaad idinkuma dheeraynayo wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
walaalayaal waa idin salaamay jaalida joogta Minnesota aad iyo aad baad isoo dhaweyseen waadna ku mahadsantihiin Soomaaliya oo dhan oo waxa jooga inta Mareykan joogta inta naga daawanaysa shaashada heesaha wuxuu ahaa markii gobonnimada leegada xilligii xisbiyada leegada ayaa la heesi jiray heesahan aad hadda maqasheen waxaan ummadan ku gubaabi jirin anagoo yaryara iskoolka naga soo wadaayay ayaan leegadan heesaha ka qaadi jirnay sidaas inaad ogaataa waxa weeye heesihii bari samaadkii oo gobonnimada lagu raadinayay waad mahadsantihiin